هذا اللي هو رئيسنا الوظيفة وقصوا خير قال شركة شرايدة قلبتها الرباط من شعب الصوماليين يلقى السيد اللي كتشوفين يلقى البوليس اللي يدري السبع بيجي يدري على ذا القلوب ذا يقول صدق صيوت صدق عمر كان بيو سيد عادة يروح يسأله ويروح فريه إلا سؤالك اللي ركعنا لكن كذا تكتب أنت كده صدق على الموضوع كان لي بالشيء كو وامر عصب وكسر بحي على مدي كوفيد 19 كا لابو أنت دور الشرع هي شركة تعد دورة المدحضة دولة الفدرالكا هي مدحضة دولة حماكا دولة الفدرالكا كده وفر الدورة هي هلكا قبل قاعدة السفاريسو يقول كصدق هذا كيس البضة يكسر في كده عدالة الدولة يوم إلا هذا بروسيجرka iyo warkiishada soo dhigayna firifkarayaan haddaan ku horeeyo go'aamada ka soo baxay waddanka Soomaaliya gaar ahaan guddida qaabilsan arrimaha coronavirus COVID-19 markii aan dhageysanay khubarada iyo aqoonyahanka iyo sayniska iyo dhakhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka intuba waxa ay sheegeen inkastoo aad loo dadaalay aad loo shaqeeyay lagu dadaalay afxirka iyo kala fogaanta iyo wasaaradihii iyo hay'adihii dowladda fasax galay iyo iskuuladii iyo jaamacadihii iyo madrasadihii iyo go'aamadii hore qaatay haddana in khatartii coronavirus weli jirto haddii khatartii weli jirto macnaheedu waxa weeye inaynaan odhan karin intaan 3 أسبوع dalka xidhnay haddana hay soo baxo dabadeedna xanuunkii mar labaad u dib u soo laabto sidaa darteed dowladdu waxay xoojinaysaa go'aamadii hore uga soo baxay 2 Maarso 3 Maarso ee ahaa in lagu dhaqmo si loo badbaadiyo shacabka Soomaaliyeed waa waqtigii sida uu inoo saameeyay hadday caasimadda tahay iyo hadday isteediyada tahayba sida uu inoo saameeyay corona waxaan rabnaa in lagu dhaqmo go'aamadii hore waxaa in la kala fogaado waxaa in la kala durko waxaa in afka la xidho waxaa in qof walba halkiisa ka isku saaro goobaha shaqada sidii bay sii ahaan doonaan hay'adaha dowladda iyo wasaaradaha iyo goobaha la isugu yimaado sidoodii bay u sii ahaan doonaan ay ku sii jiri doonaan fasax 2 usbuuc sidoo kale waxa la rabaa waxayna soo gaaray talaalkii iskuullada iyo jaamacadaha iyo madrasadaha macallimiintooda saddexdaba waxa la farayaa 2 usbuuc inay isku talaalaan iyagoo iska talaali doona isteediyada iyo 17 degmo ee gobolka Banaadir waxa la diyaariyay gobolka Banaadir oo kaliya 9 meelood oo talaalku ka socdo 2 usbuuc in la isku talaalo si loo badbaadiyo nafar badan waanu jecelahay waana rabin inaynu culimada mar kale lagu celinayaa masaajidadu inay u hoggaansamaan awaamiirta kala fogaanta afsaarka waysa qaadashada oo qof walba gurigiisa kusoo waysa qaadanayo in la ilaaliyo saluu birixaalikum si nafa loo badbaadiyo dadku in ay kala fogaan ku tukadaan haddii ay lagama maarmaan noqotana guryahooda ku tukadaan in ciidamada amnigu ay gutaan waajibaadkooda oo ay fuliyaan awaamirta ka soo baxda xukuumadda ciddii u hoggaansami weydana ay tallaabo sharciya ciidamada amniga waxaa la farayaa in ay go'aamada fulintooda iyagu u xilsaayaan waan adkaynaynaa sababtoo ah waxaan rabnaa in xanuunkii oo weli inagu dhex jira in aynu xakamayno oo aan yarayno oo aan sidaa aynugu dhaafo ilahayn sidaa darteed si aan uga gudubno waa inaan adkaysano 2 usbuuc hadda dhammaan wasaaradaha ay khusayso arrimahan waxaa la farayaa iyaguna
inay qaybahooda ka fuliyaan hadday isteedyada tahay iyo hadday gobolka banaadir tahay iyo hadday wasaaradaha federaalka tahay hoteelada maqaaxiyaha madarasadaha jaamacadaha garoomada diyaaradda shirkadaha brifatka ah dhammaantood waxaa la faraya iyaguna inay ilaaliyaan kala fogaanta iyo inay dadku guryahooda kusoo shaqeeyaan intaasi waa go'aamada covid-19 waxaan la rajayn doonaa in loo hoggaansamo 2 usbuuc insha allah waxaan rajaynaynaa 2 usbuuc kadib in wax badan inoo fududaan doonaa inagana fududaan doonaa xanuunkuna sidii dabaysha uu ina dhaafi doono ilaa intaa kadib waxaan u gudbayaa qodobka labaad si aan u soo koobo oo ay su-aaluhu inoogu fududaan qodobka labaad waxa weeye doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xalayto waxa uu soo saaray casuumad uu ku casuumayo madaxda dowladaha xubnaha kala dowladda federaalka in la isugu yimaado shir 22-ka bisha maarso oo ku beegan isniin shirku wuxuu ka dhici doonaa Afisiyoni Center xarunta Afisiyoni oo ay leeyihiin ciidamada qaranka Soomaaliya xarunta Afisiyoni Center ayaa loo diyaariyey waxaana hawsha qabanqaabadeeda iyo diyaarinteeda ku hawlan xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaan rajaynaynaa inaan dalkani oo inoo ajanda noqon doonta 3 kelmadood oo ah doorasho waxaan runtii aada uga xunnahay iyadoo dalku doorasho aadayo in siyaasiyiinta qaar ay ku mashquulaan inay sameeyaan isbahaysiyadaas oo ah doorasho la dir isbahaysiyada doorasho la dagaalanka ah ama doorasho diidkaahi waxay inagu celinayaan jid qaldan iyo jid dibudhac waxaynu ka soo gudubnay caqabado badan caqabadahaynu ka soo gudubnayna waa tan hadda guusheeda ay muuqato ee ah dalkeennii maanta in loo arkayo dal ka soo baxay burburkii iyo jabkii iyo qaranjabkii oo u soo gudbaya dal dhisan oo hay-adihiisi ay wada dhisan yihiin dastuuriga ahaa intaynoo dhimanna oo inoo dhammaystiran haddii aan halkaa ku nuuxnuuxsado dowladdu waxay diyaar u tahay in sida ugu dhaqsaa badan doorasho loo sida ugu dhaqsaa badan 17 September heshiiskii waan haysanaa 2 aqal ansixiyeen 16 February guddigii farsamadana waan haysanaa waxaan rajaynaynaa in wixii ka dhiman la dhamaystiro guddida farsamada anugaa guddoomiye ahaa waxaanu soo qorshaynay ajandaha shirka wuxuu socon doonaa 2 maalmood isniinta iyo talaadada labadaa maalmoodna waxay noqon doonaan in lagu ayido oo lagaga wada hadlo sida loo dardargelin lahaa loo ayidi lahaa 17 September iyo 16 February iyo madaxdu inay wada hadlaan oo ay sidii dalkan doorasho waadi lahaa ka wada hadlaan waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed inay dowladda ku kaalmeeyaan ducada iyo taageerada si aynu dalkani u noqdo dalkaniga oo shidaal leh oo barwaaqo ah oo maantaba soo dhacsaday oo xorriyaddiisa iyo madaxbannaanidiisa albaabkiisa caafimaadkiisa dowladdu waxay diyaar u tahay wherever meel kasta ha ahaato xataa haddii la yidhahdo badda dhexdeeda kaale badda dhexdeeda waa imanaynaa si dalku doorasho waaya haddii la yidhahdo badda dhexdeeda ha lagu shiro waxaan diyaar u nahay si dalku doorasho waado inaanu dhimaado doorasho waxaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo shirkaygan jaraayib kiiskii hayga waa taqaanin kiis maxkamad ku jira lagama hadlo sababtoo ah waa maxkamad waa garna 2 qof kama wada kasooso kama hadlayo laakiin waxaan ka hadlayaa shalay warqad ka soo baxday dowladda aan jaarka nahay dariska mayankeen warqaddu runtii waxay ahayd warqad aan ka turjumaynin ilbaxnimada dowladda kiiska la isku hayo iyo
waxa warqadda ku qornaa Ismaaciil Axmed waxaan xasuustay markaan warqadda akhrinayay iyo sida ay uga qaadatay maxkamadda uga baaqatay dowladda Kenya nin odaya oo weynaaday oo cimriyey ayaa wuxuu arkay nin dhalinyaro ah oo tacab ku jiro beer falayo marka gabar qurux badan oo u doonan tahay marka wuxuu rabay inuu gabadha ka qaado oo nin wali muusado gabadh buu rabay ka qaado marka si uu isu muujiyo inuu dhaqaalada haysta yahay nin indhabeel baa la odhan jiray indho wallo u ahaa indhihiisuna fiiqan yihiin gamuun buu geed ku soo taagay ama fallaad geedkii ku soo taagay ayuu wuxuu ku yidhi gabadhiisu uu isaga dhaadhiciyo inuu khatar yahay geedkaas waxaa guntiisa ku taagan ma gamuun ku jabay baa ma fallaad ku ganan baa ma toor gadoodaa geesii mid kaga tegay bal geedkaa waxaa ku yaalla sheeg dadkii waa isugu yimaadeen geedka halkaa ku yaalla yaa garanaya waxaa ku yaalla isagaa ku soo muday moogta dabadeedna ina keena wuxuu tusayaa inuu mid khatar yahay oo dafiiqaba wax kasta arkay intii ay sii socdeen baa soo intuu ka soo maqnaa hal geel ah baa geedkii iyo dadka dhexdoodii fadhiisatay gabgabtii iyo iswaalkii wuxuu guudka kaga dhacay hal fadhida gelgelishow ka sokaysa geedka sokadiisii hal weyn oo fadhida iyo dusha kaga dhacay ninkii lahaa gamuun geed ku yaallaan arka horta qoladii Kenya intaan maxkamadiiba la gaarin waxay ku dhex dhacay jidka dhexdiisa way tegi waayeen maxkamadii hadallada alqaafa way ku tuureen annagu maxkamadda waa taageersanahay go-aankeedana waa taageersanahay wixii ka soo sababtay markaad kiiskaaga maxkamad geysato waa inaad aqbasho laakiin walaaladeen waxay diideen cadaalad waxay diideen maxkamadda caalamiga ahayd waxay ku doodeen in maxkamaddu aanay tixgelin 2009 heshiiskii dhacay warqadoodu shalay waa wada akhriyeen qodobka saddexaad waxay dhahdeen maxkamaddu ma tixgelin MOU-gii 2009 dhacay oo ay ahayd inaanu bannaanka ku heshiin ay Soomaaliya ma aqbalin 2009 golaha shacabku unanimously aqlabiyad bay ku diideen MOU aqlabiyad bay ku diideen heshiiska sidaa darteed waxaan u sheegaynaa dowladda Kenya Soomaaliya inaanay marna aqbalin heshiiska ay ku doodayaan ay leeyihiin maxkamaddu la marka noo eego qodobkooda waxay nagu tilmaameen expansionist dad raba inay Kenya qabsadaan minni dad raba inay weeraraan minni waxaanu nahay dowlad nabadeed dal jecel darsineed laakiin haddaanan intaa jeclayn maxkamadda ma ahaato peacefully and according to justice in cadaalad iyo qaynuun lagu kala oo anigeeda ku lahaa ilbaxnimadu waxay ku jirtaa sharciga oo lagu kala waxay yidhahdeen annagu diyaar min warqadooda saasaa ku qornay annagoo diyaar ahayn baa nala qaaday qodobka 14aad 2015 hadda marayno 6 sannadood waxa lagu diyaarin waayey ma aqaan waxa lagu diyaarin waayey 6 years hadda lagu diyaarin waxaasoo dhan waxaanu arkaynaa dadaan cadaalad rabin laakiin annagu cadaalad baan rabnaa derisno wanaag baan rabnaa nabad baan rabnaa waxaan rabnaa in lagu kala baxo sharciga waxaananu ka warsugaynaa maxkamadda cadaaladda adduunka iyo go-aankeeda waxaan ku soo gabagabaynayaa waxaan rabaa halkan inaan uga diro salaam kabaliyo iyo mahadnaq tiimkii difaacayay baddeenna iyo joogay heeg inuu hogaaminayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed looyaradii iyo xubnihii dowladda ka socday ee ka qayb galay ee aan nasan habeen iyo maalin ee soo jeeday ee u soo jeeday baxsashada xuquuqda Soomaaliya aad iyo aad baa umahadsantihiin su-aalada wada furay aad baad umahadsantahay waa muqaadaro kayfiya waaye laba su-aal baan madaxweyne farmaajo qaraca Soomaalidu kale laakiin partiishana horana nooca Soomaaliyaasha ka qayb galay shaqaale joogeen yaa loo diray cusubnaanta macnaheedu maxay ahayd dadku way fahmi waayeen